Assalamu alaikum, welcome to L4 Lacanso Teaches YouTube channel. Maanta waxaan rabnaa inaan wada aragno sida loo sameeyo email account ama Gmail sida loo sameeyo. So marka hore setting-gaad galaynaa, kadib waxaan daydaynaa marka account iyo account and backup meesha ku qoran tahay xaggaasaad galaysaa, then account waa taaban. account markaad saa u taabatid, marka haddii uu email hore kugu sii jiro rabtid inaad ka saartid ayar emailka taabanaysaa, kadibna remove account waad leedahay. remove account markaad saa u taabatid, passwordkii wuu kusoo saaray adiga shudintu ku dhaho ayuu passwordkaaga kusoo saaraya, then passwordkaaga ama pattern-kaaga ayaad taabsiinaysaa ayaad gashanaysaa. saasuu kaaga baxay marka account-kii hore kugu jiray. account cusub markaa si aad u gashatid, saadaad account-ka cusub ka saartid, xaggan wuxuu kusoo saaray account-kii waad ka saartay, backup ma lihid, your data is not backed up. kadib ayar halkan hoosna ku qoran tahay add account ayaad taabanaysaa. add account markaad saa u taabatid, Google meeshay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa. kadib marka saad uu kugu soo baxo account cusub markaad rabtid, halkan create account baad taabanaysaa, then for myself baad leedahay. ilaa hadda setting-gii wayaan waxaan ku dhex jirno. halkan markaa magacaagaad ku qoranaysaa, magacaad rabtid inuu kuu soo baxo ayaad ku qoranaysaa. then magaca aabaha ama magaca awowga baad ku xijisiinaysaa. iminka tusaale ahaan anugu magacanan isticmaalayaa maadaama ruux kale u sameynayo account-ka. kadib basic information-kaaga kusoo baxaya xaggan bishii aad dhalatay ayaad ka dooranaysaa kuwan taxan. kadib day-ga ama maalinka ayaad ku xijisiinaysaa, kadibna sanadkii aad dhalatay ayaad ku xijisiinaysaa. markaad saa u dooratid kadibna jinsigaaga ayaad dooranaysaa, kadibna waad ku xijisiinaysaa, waxaad leedahay next. hadda marka wuxuu kusoo saarayaa emailada aad dooran kartid. haddii aadan rabin inaad kuwan ka dhex dooratid, halkan yar ee create new account ku qoran tahay ayaad taabanaysaa, kadibna magacaad doontid ayaad ku qoranaysaa wayaan. iminka tusaale ahaan kuwan uu isagu ii doortay ayaan taabtay. kadib marka waxaad sameynaysaa ayar passwordkaagii ayaad ku qoranaysaa. passwordkaaga markaad ku qoranaysid, marka meeshan yar halkan yar ee show password ku qoran tahay haddaad aragtid, halka haddaad taabatid passwordkaaga ayuu ku tusayaa. haddaad rabtid inaad qarsatidna waa maxaa la dhahaa show passwordka meeshan unbaad calaamadda saxitaanka ka saaraysaa. kadib contact information-kaagii ama lambarkaagaad gashanaysaa xagganna. lambarka marka kugu jira ayaa fiican inaad isticmaashid ama lambarka aad haysatid, maadaama markii uu ka halaabo aad u baahan tahay inaad isticmaashid. halkan yar ee kalena markaad dalkaaga waa inaad doorataa si lambarkaaga iyo iskula xiriirsanaadaan. lambarka aad dooranaysid iyo koodhka ama waddanka koodhkiisa inay iskula socdaan ayaad dooranaysaa. marka ana imika Ethiopia ayaan joogaa, Ethiopia wayaan waxaan daydayo Ethiopia aan dooranaya. marka kadib lambarkiina waan ku qoray, next baad taabanaysaa. kadib marka waxuu ku leeyahay emailkaagii waa kaa, lambarka recovery-ga markuu ka halaabo lambarka lagugu soo diri lahaa koodhkuna waa kaas. bes haddana agree baad leedahay. waxaa kale then Google account service kusoo saaraya, xaggana accept baad taabanaysaa. accept markaad saa u taabatid account-kaagii saas kugu gala. marka
ka imka akoonkan hadda anigu sameeyay akoonkaagii saas kugu galayaa oo saasaad account hadda ku leedahay haddaad ka baxdid ood playga gashid ama google play aad gashid waxaad arkaysaa in akoonkaagi uu ku samaysan yahay uu ku shaqaynayo haddaad rabtid inaad ku jeegaraysidna waxaad doontana waad kusoo download garaysan kartaa imka Facebook Lite ayaan soo qaatay si aan idin tuso inuu shaqaynayo aan ku download garanaya markaa waa saasa